soo dhawaada jaalayaal nabadgelyo korkiina ha ahaato qaybtan waxaanu kaga hadli doonaa tobanka sirdoon ee ugu xooga badan leh dunida iyo shaqaalahooda iyo taariikhdii la aasaasay sidoo kale macluumaadkooda oo dhammaystiran ayaynu kaga hadli doonaa haddii aan soo qaadano sirdoonka koobaad ama wakaalada koobaad ama wakaalada sirdoon ee koobaad waa Inter-Service Intelligence waxaa laga leeyahay dalka Pakistan wakaalada sirdoonka adduunka ugu fiican waa hay'ad laga leeyahay dalka Pakistan waxaanu ku soo qaadan doonaa macluumaadyo ku saabsan hay'adaha dalka Pakistan maadaama aan dhahnay waa dalka haysta hay'adda ugu fiican caalamka waana hay'adda la soo gaabiyay ISI waaxda ammaanka ama sirdoonka gudaha hay'adani waa mid ka dhisan dalka Pakistan xarunteeduna tahay magaalada Islamabad ee caasimadda dalka Pakistan waa hay'adda sirdoon ee ugu fiican caalamka taasoo xataa ka horeysa hay'adaha sirdoonka ee dalalka caalamka sida Mareykanka, Jarmalka, Faransiiska iyo Israa'iil hay'adani waa mid kamid ah hay'adaha ugu waaweyn caalamka waana kuwooda ugu fiican marka ay timaado sheekada basaasnimadu hay'adan waxaa la aasaasay sanadkii 1948 markii uu socday dagaalkii India iyo Pakistan taas oo keentay in ay Pakistan aysan lahayn wax sirdoon ah oo waa looga wanaagsanaa dhanka waxbasaasida iyo isku xirka ciidamada badda bariga iyo cirka sida awgeed fikirka lagu aasaasay hay'adan waxaa lahaa Roberto Cotham oo ahaa taliyihii guud ee ciidamada Britishka Indiyaanka oo uu adeegi jiray boqortooyadii Ingiriiska intii ay gumaysanaysay dalka India generaalku waxa uu u doortay hay'adan in uu aasaaso Colonel Shahid Hamud markii ay bilowday hay'adani in ay howlgeliso in ay ballaarato waxa ka dambeeyay Sayid Maxamed Ahsan wuxuuna ahaa oo ka tirsanaa ciidamada badda ku xigeenka agaasimaha ciidamada badda Sayid wuxuu kaalin mug leh ka qaatay isku dabaridkii habshaqeynta hay'adan oo loo yaqaano ISI markii uu xilka afkambiga kula wareegay madaxweynihii militariga ahaa ee Maxamed Ayub Khan wuxuu sababay afkambigaasi in la hoos keeno xukuumaddiisii dhammaan hay'adaha sirdoon ee dalka Pakistan muddadii uu ka talinayay dalka Pakistan madaxweynihii militariga ahaa hay'adani waxay ku shaqeyn jirtay awaamirta madaxweynaha iyadoona si aad ah u howlgeli jirtay 1977kii waxaa mar kale dalka afgambi ku qabsaday Generaal Maxamed Sayyidul Xaq wadankii waxa uu mar kale gacanta u galay xukun militari oo aan jileec iyo jixin aqoon taasina waxay fursad weyn ay u hayd hay'adda dalka Pakistan ee ISI iyadoo oo la sii ballaariyay howlgaladii ay hay'adani ay fulin jirtayna waxay isku bedeleen kuwa ka badan kuwii ay horay u qaban jirtay waayo waa la ballaariyay hay'adan waxay markaasi si isku mid ah ay ugu howlgali jirtay gudaha dalka iyo dibadda dalka labadoodaba sanadkii 1979kii waa sanadkii hay'adani noqotay dawlad ku dhex jirta dawlad kale madaxweynihii militariga ahaa waxa uu arkay hay'adani in ay ka qayb qaadan karto ciribtiradii midowgii Soofiyeed sida awgeed waxa ay isbahaysi la yeelatay hay'adda Mareykanka taasina waxa ay dhalisay in ay hay'adani hesho taageero lacageed iyo mid qalabeed oo kaga imaanaysa dhanka iyo Mareykanka laakiin dibka jira waxa ay ahayd in aysan isku mid ahayn oo ay kala duwanaayeen ujeedada uu ka lahaa dhulkaasi madaxweynihii militariga ahaa iyo ujeedka ay ka lahaayeen Mareykanka taasi oo caqabad buuxda ku noqotay xiriirka cusub ee labadani hay'adood waa ISI iyo CIA dawladda Pakistan arrinkaasi kama aysan harin hadafkeeda balse waxay bilowday in ay fuliso dhaqdhaqaaqyadeedii waxaana la sheegaa in ay xiriir wanaagsan la yeelatay dagaalyahanadii Taliban hay'adani waa mid lagu amaano qaabka ay u hawgasho hay'adani waa mid mas'uul ka ah amniga wadanka guud ahaan sida ilaalinta amniga gudaha iyo ilaalinta amniga dibadda hay'adani waa mid ku xeel dheer fashilinta qorshayaasha gabagabeynta ama gacan ku dhigista argagixisada caalamiga ah hay'adani waxaa lagu xasuustaa guushii ay ka keentay labadii hay'adood ee kala ahaa Ruushka iyo India iyo qaabkii cajiibka badneed ee u qalqalgelisay amniga wadanka India sidoo kale hay'adani waxaa lagu xasuustaa qaabkii sirta badneed ee la fahmi waayay taasi oo Pakistan ay ku sameysay hubka waxgumaada ee nuclearka wakaaladani waxay wakaaladaha kale kaga duwan tahay inaysan macquul ahayn in xog laga ogaado oo iyada ku saabsan waana hay'adda lagu dahsoon caalamka haddana waa hay'adda ugu kharashka yar marka la fiiriyo wakaaladaha kale lamana sheegi karo sirta ka dambaysa
hay-adani waa mid ka qarash yar hay-adaha kale sida Mareykanka, Hindiya, Ruushka, England, Shiinaha iyo wadamo kale oo badan, haddana ka qarash yar kana fiican hay-adahaas oo dhan. sidaa awgeed waxaa loogu magac daray wakaaladii dahsoonayd ama hay-adii qarsoonayd. hay-adan waa mid halisteeda leh, lagana doonayo in ay iska fiiriyaan basaasiinta u shaqeeya hay-adaha kale sida basaasiinta hay-adaha dalka Hindiya, dalka Ruushka iyo dalka Mareykankaba. hay-adani waa mid ay ciidamadeedu ay u tababaran yihiin dhan walba, waana ay adag tahay in aad xogto ka soo saartid sirdoonadooda. midda kasii daran ayaaba ah in ay xitaa dhimasho ay ka xigaan in ay xog ku sheegaan. sidaa awgeed ayaa lagu soo bedeshaa sirdoono kale oo ay ka hayso hay-adda ISA. hay-adan waxa ay lacag badan iyo maskax dheeraada ku bixisaa sidii ay u heli lahayd xogaha ay u baahan tahay. in badanna waxa ay samaysaa markay ogaato cidda ay xogta uga baahan tahay sirdoonadooda ayay ururisaa, kadibna waxay la xiriirtaa cidda ay xogta uga baahan tahay iyadoo ku leh, waxaan ogahay basaasiintaada kuu jooga dal hebel, waxaan u baahanahay maysiinaysaa mise waan u gudbiyaa dalkaas xogtan oo markaasi ay saas ku hesho xogtii iyadoo aysan lacag badan aysan kaga bixin. hay-adaha ugu caansan ee dalka Pakistan waxaa ka mid ah 1 Inter-Service Intelligence oo waa tan aan ka soo sheekaynay. ISA waa Defense Investigation Service oo loo soo gaasho DIS Intelligence Bureau. Military Intelligence waa 5 hay-adood oo ugu caansan dalka Pakistan. ISA hay-adda ugu weyn weeye dalka. hay-adani waxay ka dhisan tahay saan horey u soo sheegnay magaalada Islamabad. hay-adani waa mid loo qaabeeyay in ay ka howlgali karto 3 sargaal oo kala ah: sargaalka ciidamada cirka, sargaalka ciidamada badda iyo sargaalka ciidamada dhulka. Pakistan waa dawladda kaliya ee ay Islaam ah haddana leh hubka nukliyeerka. hay-adaha sirdoon ee ugu fiican caalamka leh dawladda Pakistan sidoo kale waxay ka mid tahay 5 dawladeed ee ugu ciidanka badan leh uguna tababarka wanaagsan dawladaha Islaamka. waxayna leedahay hay-ad sirdoon oo aad u baaxad weyn oo loo yaqaano ISI. hay-adani waxay fasax buuxa u haysataa in ay go'aanka gaarista goobaha ama hababka loola macaamilayo cadowga Pakistan iyo samaynta howlgallada qaaska ah oo halis badan sida in la qaarijiyo dadka laga shakisan yahay. dawladda Pakistan kuma koobna oo kaliya hal hay-ad, balse waxa ay leedahay hay-ado badan, waxaana ka mid ah hay-adaha sirdoonka ciidanka militariga, agaasinka sirdoonka rayidka. dhammaantood waxa ay ku howlan yihiin ka talinta danaha dalka Pakistan. hay-adaha sirdoonka ee ka dhisan dalka Pakistan kuwaasoo kala duwan dhammaantood waxay ku howlan yihiin howlgallo kala duwan lana xiriira dabagalka xogaha sirdoonka gudaha iyo dibadda, soo ururinta xogaha muhiimka ah. waa kuwa dejiya qorshayaasha sida ilaalinta amniga dalka iyo basaasi diridda iyo in howlgallo loo xil saaro shakhsiyaad gaar ah si xogo dheeraad ah ugu keenaan. waxaana loo xil saaraa hay-adaha sirdoonka ee dalka oo ay ugu horeyso hay-adan ka soo sheekaynay, taas oo hoos yimaadaan dhammaan qaybaha kale ee dalka sirdoonadooda. sidoo awgeed hay-adda adduunka ugu fiican waxaan ku tilmaami karnaa waa hay-adda dalka Pakistan.